Webmail providers bixiyaasha waxa loo yaqaano webmail ama emailada. There are waxaa jira several organizations dhowr urur which provide kuwaasoo bixiya email service adeegyada emailka free of charge qaab free ku bixiya through the internet iyadoo loo marayo internetka. Okay, these days maalmahani dambe ama sanadadan dambe the top 3 webmail provider bixiyaasha saddexda webmail ee ugu sareysa waxay kala yihiin Google's Gmail, Google oo iska leh waxa loo yaqaano Gmail, Microsoft's Outlook.com iyo Microsoft iyadana iska leh waxa loo yaqaano Outlook.com oo marka hore loo yaqaanay Hotmail iyo Yahoo. Saddexdan waa saddexda email ama saddexda provider email ee ugu sareysa. These providers bixiyaashani are popular waa kuwa caan ah because maxaa yeelay they allow you waxay ku ogolaanayaan to access your email account emailkaaga inaad ku shaqaysiiso from anywhere meel waliba dunida aad ka joogto with an internet connection ama meel waliba laga heli karo isku xiraha internetka. Everyone can also access sidoo kale qof waliba wuxuu ka shaqayn karaa webmailkiisa on his or her mobilekiisa ama mobilekaaga. Webmailkaaga ama emailkaagan waxaad ka kici kartaa mobilekaaga, tablet devices ama qalabyada loo yaqaano tabletka, computerka wixii la mid ah. Any person marka qof waliba can create wuxuu samaysan karaa ama wuxuu abuuri karaa an electronic mail account email ama account electronic through the internet for free isagoo loo marayo internetka waliba qaab free ayuu ku samaysan karaa. This can be used tani waa la isticmaali karaa ama waxaa loo isticmaali karaa to identify in la aqoonsado this person qofkani within the internetka. Email addressyada emailada waxay leeyihiin the following section qaybahani soo socda ayay leeyihiin. Qaybta koowaad waa maxay? Username qofka inuu leeyahay magac uu ku isticmaalo emailka. For example, tusaale waxaan soo qaadanay magacan Hudson, Usman, Aisha. Saddexdan magac ayaan soo qaadanay sample. Okay, waxaa ka xiga marka magac markii qofka uu doorto kadibna inuu isticmaalo the @ calaamadan loo yaqaano calaamadan waxaa loo yaqaanaa @ ayaa loo yaqaanaa ayaa loo yaqaanaa calaamada inuu raaciyo. Okay, qodobka kale saddexaad host server name in emailka aad isticmaalaysid server namekiisa inaad raaciso. For example, tusaale Gmail, Outlook, Yahoo. Saddexdan waa inaad markaad qorto magaca aad raaciso kadibna aad raaciso server nameka aad isticmaalayso hadduu Gmail yahay, hadduu Outlook yahay iyo hadduu Yahoo yahay. Okay, a period iyo calaamada dot oo loo yaqaano period iyo domain name iyo magaca loo yaqaano domain name example .com, .net, .edu, .org and among others. Okay, waxay ku kala duwan yihiin waxyaaba loo isticmaalana waan arkaynaa. Okay, sample aan usoo qaadana marka. Fiirina marka for example tusaale email address of hudson143@gmail.com waxaana kala saaraynaa wax loo yaqaano hudson143@gmail.com. Okay, qaybta ugu horeysa oo hudson143 is raacsan waa username waa magaca qofka isticmaalaha. Calaamadani waa @ ama calaamada loo yaqaano Gmail waa server name dhibicdaana waa dot dhibicdaana horaan soo qaadanaya period dot. Okay, .com waa maxay? Domain name waa magaca domainka. Okay, fiiri marka a domain nameku is the address waa addresska ama waa ciwaanka where internet users halkaasoo isticmaalayaasha internetku can access your website ay ka ugu shaqaysiin karaan websiteka. The domain name identifies marka domain nameka wuxuu aqoonsadaa the type of institution nooca institution offering the email service oo lagu soo bandhigayo emailka. Here halkani examples waa tusaalayaal of common domains domainada kuwooda ugu caansan ama kuwooda ugu muhiimsan. meeshan waxaa noo qoran domainka halkan waxaa noo qoran micnaha ama waxa uu u taagan yahay. Okay, .com markii la dhaho waa commercial loo isticmaalaa. Okay, .edu markii loo isticmaalo waa educational institution loo isticmaalaa.
.ac marka la dhahana waa academic institution loo isticmaalaa. .org marka loo isticmaalana waxaa loo isticmaalaa non profit organizations ururada isticmaala. .gov markii la dhahana waa government dowladaha iyo hay-adahaas loo isticmaala agencies-ka. Okay, other email providers marka bixiyaasha kale emailka. Many people sidoo kale dadyo far badan also have an email address ayaa waxay leeyihiin email addressyo hosted by their company kuwaasoo ay host gareeyaan companygooda, iskuuladooda, university, jaamacadaha, organizations, ururadooda, and government iyo dowladaba. These email addresses markii addressyadani are usually badana for professional purpose waxaa loo isticmaalaa ujeedo professional ah. For example, tusaale some government qaar ka mid ah some government employees qaar ka mid ah shaqaalaha dowladda may have email address waxay yeelan karaan email address that end with kaasoo ku dhamaada @gov.so ku dhamaada.